bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan oo wanaagsan daawaday halkan waa galka wararka qodobada aad ku maqli doontaan warkayaga waxaa qayb ka dawladda Mareykanka oo fashishay siro badan oo ku saabsan dagaalada ka soconaya dalka Itoobiya xog Mareykanka oo si cad u sheegay in dhalinyaro Soomaaliyeed ay ka qayb qaateen dagaalada u dhaxeeya TPLF iyo Amxaarada Suudaan oo cabsi xoogan soo food saartay waxa ay ciidan badan dhigtay xadka TPLF Makalla waxay ku soo bandhigtay boqolaal askari oo ka tirsan ciidanka federaalka ciidankan ayay ku qabteen dagaalo xoogan oo ka dhacay Makalla ciidanka federaalka Itoobiya oo bilaabay burburinta buundooyin muhiim ah oo mara gobolada qaar hay'adaha gargaarka cawlaa xoogan ka muujiyay xaaladda gobolada qaar kadib markii la jaray buundooyinka cunnada loo marsiin lahaa dadka rayidka daawadayaal intaasi waxay noqonayaan qaar ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan warkayaga halkan waa galka wararka haddii ay tahay booqashadaadii kuugu horeysay bartan YouTube waxaynu si naxariis la kaaga codsanaynaa in subscribe aad noo saartay isla markaana gambaleelka aad furato daawada si mar waliba aad u hesho wararka warbixinada xogaga iyo barnaamijyaadka gaarka ah ee aan halkan idinkugu soo gudbino warkayaga waxaynu diiradda ku saari doonaa xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka Itoobiya iyaga oo markaasi ay ka soo baxayaan warar kala duwan isla markaana ka imaanaya dalka Itoobiya wararka qaar waxa ay sheegayaan in buundooyin markaas muhiim ah isla markaana maraya gobolada qaar markaasi ay jareen ciidanka federaalka Itoobiya ayaa arintani wax ay ku micneeyeen si markaasi cunaqabatayn xoogan ay u saaraan ciidanka TPLF geesta kalena hay'adaha gargaarka waxay walaac xoogan ka muujiyeen xaaladda gobolada qaar kadib markii la jaray buundooyinkii markaas cunnada loo marsiin lahaa dadka rayidka ah TPLF waxay sheegtay in marnaba arintani ay saameyn ku yeelan doonin isla markaana ay sii wadi doonaan dagaalada markaas ay wadaan waxay haatan gacanta ku hayaan oo ay qabsadeen gobollo dhowr ah oo markaas Makalla oo caasimad u ah Tigray markaas ay si buuxda ula wareegeen isla markaana gacan ku haynteeda ay markaas gacanta ku hayaan TPLF waxay Makalla ku soo bandhigtay boqolaal askari oo ka tirsanaa ciidanka federaalka Itoobiya waxayna sheegteen in ciidankani ay ku qabteen dagaal markaas Makalla ee u dhaxeeyay ciidanka federaalka iyo sidaas oo kale ciidanka gaarka ah ee TPLF boqolaalkan askari ee lagu soo bandhigay Makalla ayaa waxa ay sheegeen in markaas cadaaladda la marsiin doono sida hadalka u dhigeen sidaas oo kale waxa jira ciidan markaas gacanta ay ku hayaan federaalka Itoobiya TPLF waxa ay diiday in marnaba markaas la sameeyo in labada ciidan la isweedaarsado kuwaana la soo daayo halka sidaas oo kalena kuwa kale la soo deeniyo TPLF ayaa arintani waxa ay noqotay mid markaasi ay ka hortimid isla markaana ay sheegtay in diyaar aysan u ahayn geesta kale dawladda Mareykanka ayaa fashishay siro badan oo markaasi ku saabsan dagaalada ka soconaya qaybo badan oo ka mid ah dalka Itoobiya xog markaasi Mareykanka waxa uu si cad u sheegay in dhalinyaro Soomaaliyeed ay markaasi ka qayb qaateen dagaalada u dhaxeeya TPLF iyo sidaas oo kale Amxaarada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan waxa ay beenisay wararka sheegayo in ciidan Soomaaliyeed oo markaasi tababar loogu diray dalka Eritrea ay qayb ka qaadanayaan dagaalada ka soconaya dalka Itoobiya ee u dhaxeeya TPLF iyo sidaas oo kale Amxaarada wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya oo Muqdisho kula hadlayay warfaafinta waxa uu sheegay in ay jiraan ciidan Soomaaliyeed oo markaasi tababar loogu qaaday dalka Eritrea hase ahaatee aysan jirin ciidan Soomaaliyeed oo qayb ka ah dagaalada ka soconayo dalka Itoobiya arintaasi ayaa timid kadib markii waalidiinta caruurta dhalay ku dhawaad 3 cisho ay ku banaanbaxayeen qaybo badan oo ka mid ah magaalada caasimadda ah ee Muqdisho arintani ayaa waxay sidaas oo kale noqon kartaa mid markaas mar kale dib u soo celiso isla markaana soo cusboonaysiiso xaaladda waalidiinta walaaca ka muujinaya caruurtooda in markaas qayb ay ka yihiin dagaalka ka soconaya gobolka Tigray dawladda Mareykanka ayaa sheegtay in askar ka tirsan ciidanka Soomaaliyeed ay u dirtay Eritrea ay gudaha u galeen Itoobiya taas oo ay horay u beenisay
xukuumadda federaalka Soomaaliya Ilhaan Cumar oo ka tirsan aqalka wakiilada Mareykanka ayaa weydiisay Roberto oo markaasi ah si hayaha ku-xigeenka xoghayaha waaxda arrimaha Afrika ee Mareykanka waxa ka jira in uu markaasi ku lug lahaanshaha la sheegayo in ciidan Soomaaliyeed ay markaasi dagaalka Tigray qayb ka yihiin. sidaas oo kale Guterres oo su'aashaasi ka jawaabaya ayaa yiri waxaan ka warqabnaa in ciidan Soomaali ah oo ay joogeen Itoobiya laakiin hadda ma xaqiijin karo in dagaalka ay ka qayb qaateen iyo sidaas oo kale in kale balse waxa xaqiijinaynaa arintaasi ayuu yiri. Ilhaan Cumar ayaa mar kale weydiisay Guterres sababta markaas ciidanka Soomaaliyeed ay u joogaan Itoobiya wuxuuna ku jawaabay waxaan rumaysanahay in ciidamadaasi ay markaas yihiin kuwa Soomaali ah tababar markaasi ugu dirtay Eritrea kadib heshiis dhexmaray labada dowladood. warbixin dhawaan ka soo baxday hay'adda xuquuqul aadanaha u qaabilsan qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in ciidamo ka socday Soomaaliya oo tababar markaasi ugu qaaday saldhig military oo ku yaala Eritrea in markaas suurtagal ay tahay inay ka qayb qaateen dagaalada ka soconaya gobolka Tigray ee waqooyiga Itoobiya. qaramada midoobay waxay sheegtay in markaas ay soo gaareen warar sheegayo in ciidanka Soomaaliyeed lagu arkayay magaalada qadiimiga ah ee Aksum ee Tigrayga iyaga oo markaasi ka barbar dagaalamaya ciidanka Eritrea. arintani ayaa waxay walaac mar kale xoogan ku muujinaysaa waalidiinta Soomaaliyeed ee markaasi caruurtooda ay qayb ka yihiin dhalinyarada loo qaaday tababarka ee dalka Eritrea. waalidiinta oo Muqdisho ku banaanbaxaya dhowr toddobaad ka hor waxay sheegeen in marka hore lagu wargeliyay in caruurtooda loo qaaday dalka Qatar isla markaana loo qaaday Eritrea iyaga oo aan ka warhayn arinta qaramada midoobay warkeeda kadib ayaa taasi waxay dhalisay mid walaac badan oo xoogan dhalisay. tanina waxay noqonaysaa in mar kale ay dib u soo cusboonaadaan dibadbaxyada waalidiinta markaas ay ka dhigayeen qaybo badan oo ka mid ah magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. ujeedka ugu ballaaran ee dibadbaxayaashaas ayaa waxa uu ahaa in markaasi wax war iyo wacal ah aysan ka hayn caruurtooda isla markaana kaliya ay og yihiin in tababar loogu qaaday dalka Eritrea. qaar ka mid ah waalidiintaas oo warfidiyeenada Muqdisho kula hadlay waxay sheegeen in caruurta ay dhaleen qaarkood oo la soo xiriiray ay u sheegeen in haatan ay ku sugan yihiin Eritrea isla markaana xera ay ku sugan yihiin ciidan. markii ugu wardambeysay taas ay waalidiinta ku ogaadeen in caruurtooda markaas ay Eritrea ku sugnaayeen hase ahaatee markii ugu wardambeysay waxaa lagu wargeliyay in tababar dalka Qatar loogu qaadayo. Ilhaan Cumar ayaa sidaas oo kale waxa ay sheegtay in ay wado baaritaano dhowr ah oo markaasi ku aadan dhalinyarada Soomaaliyeed in markaasi qayb ay ka yihiin dagaalada ka soconaya dalka markaasi Itoobiya iyaga oo ku sii fidaya magaalooyin dhowr ah. wali dowladda federaalka Soomaaliya si rasmi ah ma aysan uga hadlin hadalkani ka soo baxay Mareykanka ee markaasi ku aadan in markaasi dhalinyaro Soomaaliyeed lagu tuhunsan yahay in wali ay qayb ka yihiin dagaalada ka soconaya qaybo badan oo ka mid ah dalka Itoobiya isla markaana u dhaxeeya ciidanka federaalka Itoobiya iyo sidaas oo kale ciidanka TPLF oo markaasi lagala wareegay gobollo ka mid ah Tigrayda taas oo ay sheegeen toddobaadkii aynu ka soo gudubnay ee dib halkaasi ugu soo rogaal celiyeen. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa laga sugayaa jawaabta ku aadan hadalka ka soo baxay Mareykanka oo lagu sheegay in markaasi dhalinyaro Soomaaliyeed ay qayb ka yihiin dagaalada ka soconaya dalka Itoobiya isla markaana in si rasmi ah markaas ay kaga soo jawaabaan. wasiirka warfaafinta hadalkiisii ugu dambeeyay waxa uu ahaa in ciidanka Soomaaliyeed kaliya ay ku sugan yihiin dalka Eritrea isla markaana tababar ay u joogaan isla markaasna uusan ogeyn ciidan Soomaaliyeed oo markaasi qayb ka ah dagaalada ka soconayo dalka Eritrea. waxa haatan ah mid degan gobollo dhowr ah markaasi ee dagaalo ku dhaxmareen TPLF iyo sidaas oo kale ciidanka federaalka. gobolada degan waxa qayb ka ah Makalla oo markaasi caasimad u ah Tigray
taniya saaka ilaa iyo haatan wax xabad ah maysan ka dhicin waxaa si buuxda markaasi gacanta ugu haya ciidanka mucaaradka galabnimadii maanta ayaa wax ay ku soo bandhigay boqolaal askari oo markaasi ka tirsan ciidanka federaalka kuwaas oo ay ku sheegeen in markaasi ay ku soo qabteen dagaaladii ugu dambeeyay ee halkaasi ka dhaca waxay sidaas oo kale ku sii fidayaan gobollo badan oo dhowr ah gobolkii ugu dambeeyay ee markaasi qabsadeen waxa uu ahaa gobol lagu magacaabo Shire 140 kilomitir ayuu dhanka waqooyi galbeed ka xigaa Maqela gobolka lagu magacaabo walina waxa ay wadaan isfidinta gobollo dhowr ah daawadayaal guud ahaan warkii waa naga intaa waad ku mahadsan tahay la socodkii la jaanqaadka warkayaga haddii ay tahay booqashadaadii kuugu horeysay ee barteena YouTube ee galka wararka waxaynu si naxariis leh kaaga codsanaynaa in subscribe aad noo saarto isla markaana gambaleelka aad furato daawada si mar waliba aad u hesho wararka warbixinada iyo barnaamijyaadka gaarka ah ee aan halkan kugu soo gudbiyo waad ku mahadsan tahay la socodkii la jaanqaadka warkayaga haddii ay tahay booqashadaadii kuugu horeysay asxaabtaada u sii sheer garay si sidaada oo kale ay warbixinadeen u helaan